nolol uguma tegin qoorta way goonay maxaan ku samri leeymin sabrin askari way gadhay 15 bishii labaad ee sanadkan shugri Yuusuf Xuseen oo 18 jir ahayd waxay raacday adhigooda markii qorraxdu ay soo baxday oo ay daaqaysay laakiin nasiib darro nin ayaa ugu yimi kaynta inta uu kufsaday ayuu kadibna dilay ninka dilay shugri waxa uu adeegsaday gudin sida eheladu sheegtay shugri waxay guri dambays u ahayd hooyo Xaliimo Muuse Gorod Xaliimo Muuse Gorod shugri Yuusuf Xuseen yahay adduunyada dirta nabad ilaahiyada soo ku soo dhawreerka ayay maxay haydanay iyo dhimashadiina dhacday iyadoo baqtiyaan u tagay walal dhimaydkii u baan u tagay nolol uguma tegin qoorta way goonay maxaan ku samri leeymin sabrin askari way gadhay ilaa maydkiina leeymatis waa ka walaalkeed Xasan Yuusuf waxa uu sheegay in sida qura ee ku samra karaan ay tahay in cadaaladda loo mariyo ninka walaashoo dilay dilka lagu sameeyay dil foolxun ahaa dad iyo dawlad bal arkay inuu ahaa wax foolxun oo horta la qaadan kari waayay cid maanta noo xigtaa noo dhawaay jirto aba adeer rumaad oo maanta dilka daba gashay oo jirta wax laga hayaa iyo wali waxaan laga midna ayna jirin ya dalkayga walaalaha waxaan sheeganaynaa in la naga caawiyo dilka foolxun naga caawiyo ninkaan noo mariyo dadka walaalaha ay la noolaan karno haddii maanta isagana dil iyo maxkamad la mariyo uma la noolaan karnaa dadka walaalaha ya aba la joogi karnaa haddii kale wax kale oo kula joogi karnaa ma jirto ya mana samri karno ninkaas oo dalka nooga tagay aba dunida noo qaxayo maxkamadda noo mariyo uma ku sabri lahaa Nasriin Cabdishakuur Axmed iyo 3 hablood oo kale oo afartuba bartay culumta sharciga ayaa toddobaadkan waxay booqdeen deegaanka falkan uu ka dhacay oo ku yaala miyiga degmada Lughaya ee gobolka Awdal waxaana hoonkebal u sheegeen in marka laga tago argagaxa qoyska la soo gudboonaatay ay taasi u sii dheer tahay duruufta nololeed oo qoyska ku adag iyo darxumo ka muuqata waxaanu la kulanay family ay ka baxday Allah u naxariistay shukri oo aad u danyara family aad u danyara oo aad u tabaalaysan oo u baahan in la garab istaago in la caawiyo duruufta ay ku sugan yihiin qoyska marxuumad shukri Yuusuf Xuseen Allah naxariistay janaha siiye waa duruuf aad u adag waxay ku nool yihiin meel aad uga durugsan tuulada Tuurka u jirta masaafo dhan 5 kilomitir tuulada aad uga yara durugsan yihiin waxay haysteen xoolo yar oo ariya markii uu falku ku dhacayna kala tagay oo la waayay waa meel miya oo ay adag tahay xitaa inay soo gaaraan magaalada duruuf dhaqaale awgeed